jinsiga imika waxaan gelnaa markii hore waxaan gelnaa jinsiga magaca qodob leh ama qumanahaado ama maqmanahaado hadda waxaan gelnaa jinsiga magaca aan qodob lahayn jinsiga magacyada aan qodobka lahayn ee qodob laawaha ah waxaa lagu gartaa astaamaha soo socda ko waxa weeye a codka ayaa lagu kala saaraa labkii dhadiga ba magacyada u dambeeyaan xarfaha iyo o ama a marka ka horeynaa codka ayaa lagu kala saaraa labkii dhadiga magacyada aan qodob lahayn waxaa qaar lagu kala saaraa codka oo lagu gartaa jinsiga magacu leeyahay inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay tusaalayaal inan iyo inan codka lagu kala saaraya baadoo fiirsa halkaa dadka Soomaaliyeed kuma adkaa dameer iyo dameer qodob ma laha midna haddana waxaa lagu kala saarayaa codka dabaal iyo dabaal oo ka horna waa lab yahay kanna waa dhadig yahay nacas iyo nacas markaa eg wax codkii baa qofku kala garanaya qofka Soomaaliga markiiba uu kala garanaya qofka af Soomaaliga u dhashay si fudud buu carabka ugu kala saarayaa ereyada tusaalayaasha magaca xarafka u dambeeyo waa lab yahay tusaalayaal diiriye wade qaade jire bare banduule kariye fure mare way haddana waxa qaybtiisa nooci labaad waxa weeye magaca xarfaha o ama a u dambeeyana waa la digahay tusaalayaasha inay doona markaa tusaalayaal diiriso wado qaado maro kariso mudiso burco hadaado kismaayo magacyada oo loo dambeeyaan waa la digay sidoo kale deeqa saxarla hargeysa baardhiga marka jigjiga iyana waxa weeye aba ugu dambaysa marka waxa weeyaan waa magacyo la dig ama kan Soomaaliya magaca saddex waxa lagu garto waxaan qodob jinsi iyo tiro labadii hore waan ku soo hadalnay marka 10 toddobaad waxaan ku hadlaynaa tirada magaca tirada magacu qaato waa mid mufrad iyo jamac mufrad waa tirada marka tirada magacu hal tahay haddaba tirada mufradka nafteeda ayaa laba sii kala baxda mufrad oo hal misla iyo mufrad jamac waxaan weegnaa mufradka hore oo mufradka tirada mufradkeehi waa tira hal una oo wax ka badan aan sheegayn tusaalayaal bisad baa joogta aqalka tuug baa noo soo dhacay xalay markaad eegto bisad waa mufrad tuugna waa mufrad markaa mufradkani halun buu sheegaya wax kale ma sheegayo tusaalayaasha kore magacyada u horeeya awraaraha oo ay ka hadlayaan bisad iyo tuug waa laba magac oo mufrad ah waxaa yeelay tir ahaan mid waliba waa hal haddaba waxaa jira mufrad kale mufrad jamac ah magacyada qaar baa iyaga oo kooxa ama jamac ah haddana mufrad ah waa wax ka badan hal oo wada socda oo haddana koox ahaan hal isku ah tusaalayaal iminka geel waxa weeye dee neef maaha tulud maaha waa geel badan weeye boqol buu gaari karaa kani ma noqon karaa ari tiruu gaari karaa boqol buu gaari karaa lo oo sidoo kale raxan waa wax wada socda oo jamac ahaan xala marka mufradun baa haddana loo ictiqaadaya waayo ma laha jamac maaha hadda waa hal geelun hal ari hal raxana marka saasaa loola macaamilaya waayo magaca labaadin gelin waxa weeye jamaca magaca tiradii marka waxaan soo dhaafnay kii halka ahaa ee mufradka ahaa marka tirada magacu ka badan tahay hal oo tahay laba iyo wax ka sii badan baa la yidhaahdaa jamac dhigaalka magaca mufradkii waa isbedelaa falkana saameyn baa jamcu ku yeeshaa marka magacu faacil yahay saameyntan waxaynu kusoo qaadi doonaa fasalka falka tusaalayaal haddaba waxaynu nidhi bisadba markii hore ahaa bisado ayaa noo jooga aqalka eegata qoraalkiisuu isbedelay
bisad buu markii hore ahaa markuu jamac noqday bisadu noqday waraabayaal baa na soo weeraray xalay waa jamac markii hore mufradkiisu wuxuu ahaa waraabe laakiin markii uu jamac noqday wuu isbedelay wuxuu noqonayaa waraabayaal baa na soo weeraray xalay marka isbedel baa ku dhacay jamcu saasuu bedelaa magaca jamaca magaca soomaaligu waa 8 kooxood oo waaweyn jamaca magaca mufradka ah ee shibana u dambeeyo ee allana waxaa la yidhahaa hal isku dhawaaq waa syllable tusaalayaal afaf darar dalal qaacida la raacayo waxa weeye mufradka magaca oo loo geeyey labada xaraf ee u dambeeya magaca mufradka ah masalan marka labadii lagu celinaya labadii u dambeeyay lagu celinaya darar buu ahaa labadii u dambeeyay lagu celinaya waab labadii u dambeeyay lagu celinaya halkaa ka wad jamaca magaca mufradka ee shibana u dambeeya allana ah laakiin dhadig kii hore uu lab buu ahaa kan uu dhadig yahay wuu ka duwan yahay markaa wuxuu noqonayaa masalan kab wuxuu noqonayaa jamciisu kabo ulo kulkulo haan haawo qaacida kuwan waxa weeye mufradka jamaca oo loo geeyey oo jamaca kooxda saddexaad waxa weeye jamaca magaca shibana u dambeeya ee laba allana ah ama ka badan laba allana waxa laba isku dhawaaq tusaalayaal garbo faras fardo gabdho qaacidadu waxa weeye kuwan naftoodu oo ayaa u dambeeya laakiin la koox maaha kuwii hore ma kala lahaa lab iyo dhadig talabaad isbedello ayaa ku dhacaa qoraalkooda sida faras iyo fardo marka oodun baa u dambaysa maahaane la jaad maaha midda kale ma kala lahaa lab iyo dhadig kuwan marka saas ayagana loo xafidaya qaybta kooxda afraad jamaca magaca mufradka ah ee xarafka e u dambeeya weeye tusaalayaal wadayaal kuwan soomaalidu wuu jilicsan yihiin noocan marka uu dambeeya ee u dambayso barayaal furayaal kuwan qaacidadu waxa weeye yaal baa raacaysa oo markaa eeduna waxay isu bedelaysaa iyaguna dad soomaalidu aad bay u taqaanaa kan jamaca magaca shanaad mufradka xarafka waa magaca mufradka ee xarafka ya u dambeeyo kuwan waa ku yarina Soomaaliga marka mesela waxa weeye wax soo qaata gabayo koleyo kuwan odayo magaca oday umba odayaal laga dhigaa odayaal ma waa khalad qaybta hore noqon lahaa hadii uu odayaal yahay oo yaaba u dambeyn lahayd laakiin magaciidan oo baa u dambaysa marka waa koley waxa loo geenayaa oo kaliya loo geenayaa qaacidaas la raacayo jamaca qaybta lixaad ee mufradka u dambeeyo waxa weeye oo u dambeeyo waxa kamid ah misan tusaalayaal magaalooyin wadooyin kuwan waxa weeye qaacidadu waxa weeye waxa raacaya magacii mufradka ahaa oo iyo ya iyo na ayaa u dambeynaya qaybta toddobaad waxa weeye magaca mufradka ahaa ee xarafka i u dambeeyo ama u dambeeyo tusaalayaal mindiyo dheriyo ardaayo kuwan waxa weeye yo baa raacaysa marka kii ay i u dambeysay iyo kii u dambeysay labadaba yo unbaa ku biiraya qayb sideed baa jirta oo cod lagu kala saaro mufradkiisa jamciisa qaybtan sideed waxa weeye marka misalan awr way jamci dibi qoraal kale oo cad oo lagu kala saaraya ma jiro marka sidan baa loo xafidaya magacu noocyu leeyahay marka noocyada magaca waa laba magac gaar ah iyo magac guud midalba gaarkiisa nu sharaxayna magaca gaarkii waa magac loo yaqaano qof meel ama xayawaan shabaheeda oo u gaara looguna yeero dadka iyo xayawaanku waa isu yaqaanaan oo waa ku soo jeestaan marka loogu yeero maxaa haddaba lagu gartaa magaca gaarka ah tusaalayaal axmed yeelle wiilo waa magacyo dad teeyo xinfiniin garo waa magacyo hal faras iyo ri siday u kala horeeyaan baydhabo marka iyo tuuyo waa magacyo meelo dhigaalka waxaa lagu gartaa dhigaalka magaca gaarka ah xarafka u horeeya magaca ayaa weyn sida ku cad tusaalayaasha taas hal xasuusnaan markasta tusaalayaal waxa weeye marka waxa weeyaan awdubad mulaaxo iyo xaaj faarax maantay gaari yar
raaceen Jabuuti caawa inay boorama kusii dhaxaan baa la arkaa oo berri uun ku hoydaan loo yactay magacyada meesha ku jiro dhan waxa ugu horeeya xarafka ugu horeeya uu weyn yahay waayo waa magacyo gaara taasaa calaamad u ah marka sidaa hala maartay loo barto magacyada gaarkii ma laha jamac magacyada gaarkii ma noqdaan jamac waa jiraanse kuwa markooda hore jamac ah oo sidaas loo yaqaano marka magaca gaarkii qaato suge waxaa la yidhahaa qodobka iyo kuwa kaloo badan aynu arki doonaa dhigto marka waxa weeye cali baa taga dugsi caliga ayaa taga dugsi dee ma noqonayso waa magac gaar ah markaa ma qaadan karo wax la yidhaaho suge waa qodob markan waxa laga hadlaya qodob ma qaadan karo hadda waxaynu gudubnay ba oo magaca guud waa maxay magaca guud magaca guud waa magac ka dhexeeya waxyaalo badan oo ay wadaagaan magaca guud wax gaar kuma aha waxyaalahaasi waxay noqon karaan kuwa aan noole ama noole tusaalayaa geed dheer baan ka koray libaax geed iyo libaax markaa laba magac baa ku jira inanka waa laga eri dugsiga inanka iyo dugsiga waa laba magac aqalkayga ayaa u weyn kuwa reerka aqalka iyo reerka waa laba magac beertiisu ma baxdo beer waa magac magacyada waxaad arkaysaa geed imika wax gaara kuma aha geed dhirtoo dhan baa loonaya waa geed libaaxna waa libaax oo dhan baa loo yaqaana inankana waa inan oo dhan buu ka dhexeeya marka waxa weeye magacyada noocaasa dugsi waa dugsigu marka waxa weeye magacyada caynkaasi waa magacyo guud oo wax badan bay ka dhexeeyaan meel gaar kuma noqon karo magacyada geed libaax inan dugsi reer beer dhammaan waa magacyo guud magaca guud iyo suge magaca guud waxaa lagu yaqaanaa wuxuu qaataa suge waxa loo yaqaanaa markaynu arki doonaa misna waxa weeye tusaalayaal inanka dugsiga aqalkayga habarta iyo beertan imika suga kaadaasi waa qodob dugsiga gaaduna waa qodob aqalkayga waa magacuyaal lahaanshiyeed laakiin wuxuu tilmaamaya wuxuu sugayaa aqalka cidda leh marka waxa la yidhahaa sugu waa sugaysna habarta taad waa qodob beertan waa magacuyaal tilmaameed baa la yidhahaa oo waxa weeye beertan marka kuwaasoo dhan waxay noqonayaan magacuyaal lahaanshiyeed magacuyaal tilmaameed iyo qodob intu waxa loo yaqaano suga tusaalayaasha kale magacyada inanka dugsi aqalkayga reerka iyo beertiisu dhammaan waa magacyo guud wehelinayaan waxaa wehelinaya sugayaasha siday u kala horeeyaan ka ga kayga ta iyo ta